السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مانصدني waa baroordiiq waxaanay ka hadlaysaa dhacdadii 14 Oktoobar 2017 ka dhacday magaalada Muqdisho. inkastoo geeridu xaq tahay isla mar ahaantan Ilaahay jideeyay haddana nabigu naxariis iyo nabadgelyo korkiisa ahaatee wuxuu ka ducaystay mawlud qaflaha hore waxa masiibo loogu tilmaami jiray qof daad qaaday iyo qof gubtay balse dhacdadani waa halaag waxa ku geeriyooday qaybaha kala duwan ee bulshada hadday tahay aqoon-yahan dhalinyaro culimada diin hooyooyin dhalaan isku soo wada duubo 15 daqiiqo gudahood ayay dad islaam ah oo Soomaaliha geeridu ku soo xaadirtay waxaan tacsiyadaynayaa eheladii ku waayay dadkooda waxaan Ilaahay caafimaad uga baryayaa intii ku dhaawacantay waxaana naxariistiisa Ilaahay u weydiinayaa intii ku geeriyootay maasadana waxa la yiraahdaa xamar dhaxalumay helin wuxuu yiri xamar dhaxalumay helin dhii korkeeda lagu qabo xamar dhaxalumay helin in dadkeeda lagu dhibo xamar dhaxalumay helin in dhexdeeda lagu dilo dhalaankiyo duqaytida xamar dhaxalumay helin dhirqdiyo colaadaha xamar dhaxalumay helin geeri joogtay iyo dhagal xamar dhaxalumay helin hadba qarax dhacay iyo dhiiladiyo waxyeelada xamar dhaxalumay helin dhurwaag iyo dad qalatada misna xiran dhar caadi ah xamar dhaxalumay helin dheeligeeda nacab jecel xamar dhaxalumay helin dhismaheeda ruux necab xamar dhaxalumay helin inta gacan ku dhiiglaa ninka diin ku dhuuntiyo dhareerliyan liitiga dhawaan way ka dabargoy masiibadan dhirbaaxday way ka bixi dhibaatada nabadala tabaa iman dhogor baa u soo bixi dhool iyo gubaa curan dhulgariirkan faalle waxa dhacay bal suuree dadkan dhamacdu laysee dhuundhuumay ee huray arday dhigata diin iyo dhakhtar iyo aqoon-yahan inta oday la jaray dhinac ama dhabarka ruux go'an waxa dhii qulqulay iyo ubadka isku dhagayay dhidigiyo labku yahay ehelkoodu dhaadayn ku dhawee garaadkoo dhugo isweydii maydkani muxuu dhimay weli dhagar intaa lee kama dhicin adduunyada xere dhiigta aadmiga dhulka hooye laga dhigay taariikhdu may dhigin iska daa qof dhaayaha ilma dhibiq ka soo tidhi ay dharkiisa qoysee ilaa dhaca qiyaamuhu dhagaxaanta ciidiyo dhirtaa oohin wadilayd qaylada iyo dhawaaqana dadkaa dhagabeelila yaa damiirka dhaawacay ilka dhigay wanaaggii naxariista dhoofiyey iimaanka kala dhimay war miyaan la dhimanayn adduunyada la dhaafayn dhooba la isku awdayn feedhuhu isdhaafayn qayd cad la isu dhuubayn dharaar aan qareen jirin wayse aanay dhowrnayn qof kastaa wuxuu dhigay gacan looga dhiibayn xisaab lagu dhadhaarayn ka dhambalay dadweynaha dhuuxa daadshay maatida dhegta dhiigga darayow ka iimaanku dhiman yiyo ninka dheer la baxayow qiyaamuhu markuu dhaco maalintaan dhufays jirin xaggee baad ku dhuumani ninka dhiig islaameed ba'anaa ku dhiiraday dhagarqabahan yaa yidhi dhalashaad wadaagtaa dadku maanay dhaaday dadku maanay dhuganayn dadku maanay dhiiliya dab dhexdooda laga shido ka ilbaxayn dhibaatada haddaan ruux ku dhici karin inuu gacan ku soo dhigo oo dhambaal ka soo diro halkay dhaabadaystaan irbaduub awooddood kumay dhiirradeen qarax kuwa dabinka dhigaya ee dhameeyey maxastii haddaan shicib dhan kala socdo